السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحرن جنال كمر كلا سو دواده aad aad u mahadsantihiin maanta waa jimco wanaagsan ayaan idin leeyahay waa labada bisha sideedaad ee sanadka 2024 muuqaalkan waxaan rabaa inaan maanta aan kula wadaago gaar ahaan dadka Mareykanka jooga lacagtii Jali Taxi Credit-ka xagee ku dambeysay horta su'aalo fara badan ayaa laga soo weydiinaya qaybta commentiga xagee lacagtii Jali Taxi Credit-ka oo bishii January ee sanadkan ay aqalka hoose meel mariyeen sanadka ayaa shalay la horgeeyay xagee ku dambeysay ayaan rabaa inaan idin la wadaago sidoo kalena maxaabiistii shalay Mareykanka iyo Ruushka isweydaarsadeen wadamo Yurubna ay gacan ka siiyeen sidii Mareykanka maxaabiistooda loogu soo deyn lahaa ayaa kala gaaray Ruushka iyo waliba Mareykanka iyadoo madaxweyne Joe Biden iyo madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris ay xalay ku soo dhaweeyeen Mareykanka maxaabiistii afarta ee Ruushka uu soo daayay arintaasi ayaan rabaa sidoo kale iyo gaar ahaan Jarmalka mid kamid ah maxaabiista Ruushka oo ay sii daayeen sababta ay ku sii daayeen iyo sababta ay Jarmalku Mareykanka ugu caawiyeen in maxaabiistooda ay u helaan ayaan rabaa inaan idin la wadaago balse marka hore aan ku bilaabo lacagtii Jali Taxi Credit-ka aad ayaa la soo weydiinayay horta haddii warka markuu sax noqdo oo wax ay ka soo baxanayaan jeclahay inaan dadka la wadaago war been abuura ama war aan jirin mar ma jeclay inaan dadka igu xiran la wadaago dad fara badan ayaa waxay soo dhahayeen lacagta Jali Taxi Credit-ka cilmi oo July 15keeda bilaabanaysa maxaa dhacay kama soo hadlin haday bilaabato ma idin soo gaarto waa maya maxaa yeelay maba la ansixinba shalay ayaa marka January ayaa aqalka wakiilada ay meel mariyeen ee Congress-ka oo ay 357 ay ogolaadeen 70 ay diideen oo lagu ansixiyay marka lacag 79 bilyan ay ahayd oo Jali Taxi Credit sanadka ilaa iyo January ilaa ay hadda lama horgeeynin shalay ayaa aqalka sanadka la horgeeyay xubnaha Republican-ka ayaa waxa ay doonayeen sharcigan in marka hore la horgeeyo guddiga dhaqaalaha ee Congress-ka si haddii isbedel uu u baahan yahay iyo cabashooyinka ay ka qabaan ay uga hadlaan laakiin waxa jiray kulamo daaha gadaashiisa ah oo la doonayay in waxyaabahaasi lagu dhameeyo iyadoo xubnaha labada senatarada qaar dhinacyadooda dimuqraadiga iyo Republican-ku ay isku eedeynayeen arrintan inaysan dhab ama daacad aysan ka ahayn sharciga la meel mariyo shalay ayaa sharcigan marka la horgeeyay aqalka sanadka Jack Schumer oo gudoomiyaha aqlabiyadda aqalka sanadka oo dimuqraadiga ayaa intii sharcigan markii uu hordhigayay aqalka sanadka waxa uu su'aal galiyay xubnaha Republican-ku waxa ay ku soo beeri doonaan dimuqraadiyiinta isla markaana dadka Amerikaanka ee shacabka canshuur dhaaf miyay siin doonaan mase sharcigan waa hor istaagi doonaan canshuur dhaafka loogu sameynayo dadka low income-ka oo dhaqaalahoodu hooseeyo isla markaana canshuur dhaaf loogu sameynayo ganacsatada sharcigan muhiimadiisu waxay ahayd in canshuur dhaaf amaba Jali Taxi Credit lagu siiyo waalidiinta low income-ka oo dhaqaalahoodu hooseeyo isla markaana ganacsiyada canshuur dhaaf loo ogolaado Jack Schumer sidoo kale waxa uu yiri markii sharcigan ay diideen xubnaha Republican-ka shacabka Mareykanka ayaa waxa maanta loos gareeyay ama sidoo kale ayuu loos risk ah halka sidoo kalena uu sheegay in xubnaha senatarada ee Republican-ka ah ay diideen in ay caawiyaan sanadkan 2024 shacabka Mareykanka maxaa yeelay waxa uu yiri waxa ay diideen wada shaqeyn ma ahan waxa ay diideen siyaasad marka inaan wada shaqeyna ay diideen wiil sharcigan marka waxa uu baahnaa 60 cod si uu u meel maro 48 ayaa ogolaaday 44na waa ay diideen marka sharcigan wadiiqadii u horeysay ayuu doonayay inuu ka gudbo si cod buuxda loogu gudbiyo aqalka sanadka laakiin talaabadii koobaad ayuu sharcigan ku guuldareystay inta badan xubnaha Republican-ka qaarkood waa ay maqnaayeen inta badanna waa ay diideen laakiin xubnaha yar ee Republican-ka ee sharcigan u codeeyay waxa kamid ah senatarka laga soo doorto gobolka Oklahoma oo la yiraahdo McWayne Mullin iyo sidoo kale Josh Hawley oo laga soo doorto Missouri iyo Rick Scott oo Florida laga soo doorto waa ay u codeeyeen dimuqraadiyiinta xubnihii madaxa banaana ee la codeyn jiray dimuqraadiyiinta sida Bernie Sanders iyo waliba Joe Manchin oo Virginia iyo Vermont laga soo kala doorto sharcigan waa ay diideenba waa laba xubnood oo muhiim ah oo dimuqraadiya labaduba sharcigan waa ay diideen laakiin waxa jira sidoo kale xubno badan oo ka maqnaa aqalka sanadka waxa kamid ah dhinaca Republican-ka Marsha Blackburn oo laga soo doorto Tennessee iyo sidoo kale John Hoeven oo laga soo doorto North Dakota Mitt Romney oo laga soo doorto Utah Tim Scott oo laga soo doorto South Carolina sidoo kalena Mark Warner oo laga soo doorto Virginia sidoo kale JD Vance oo Trump madaxweyne ku xigeen uu u magacaabay shalay waxa uu jiray xadka ayuu booqanayay oo isaguna maba uusan jooginba dhinaca dimuqraadiyiinta sidoo kalena Robert Menendez senatarkii lagu helay
dambiyada 16 bishan 16 dambi lagu helay oo musuqmaasuq iyo laaluush iyo inuu wakiil wadan ajnabi ahaa isaguna maba uusan codeynin. waxaa jirtay waraaq uu soo saaray 23 bishii hore oo senatarka gobolka New Jersey Phil Murphy uu diray uu leeyahay waan iska casilayaa senatarnimada 20 bishan aynu ku jirnay maanta labada yuri waa in is casilaya markii dambiye fara badan lagu helay xukunkiisa October dhamaadkeeda 29keeda ayuu xukunkiisa dhici doonaa. marka waa isagu xubnaha codeymaba uusan ku jirin because ma loo ogolaba inuu sanadka yimaado. sidoo kalena sharcigan marka Jali Tax Credit-ka waxaa la doonayay in lacagta Jali Tax Credit-ka waalidiinta loo kordhiyo hadda 1600 ayaa ilmo kasta lagu qaataa laakiin waxaa la doonayay in 1800 la gaarsiiyo sanadkii 2023 hadii la ogolaan lahaa lacagtan dadka inta uusan sanadkan dhamaan ayaa loo soo diri lahaa 1800 ilmo kasta lagu qaadan lahaa. sidoo kalena 1900 ayaa ilmo kasta lagu qaadan lahaa sanadka 2024 markuu dhamaado canshuurta la xareeyo halka sidoo kalena 2000 ay gaari lahayd sanadka 2025 in ilmo kasta lagu qaato laakiin sharcigan sanadkii ayaa diiday gaar ahaan xubnaha Republicanka. qaar kamid ah xubnaha Republicanka waxay yiraahdeen sharcigan muhiimadiisu waxa ay tahay in dadka aysan shaqaynin oo dadku shaqada ay ka fariistaan iyo sidoo kalena in loo ogolaado soo galootiga sharci darrada caruurtooda in lagu qaato lacagtan Jali Tax Credit-ka laakiin xubnaha Republicanka qaarkood waxay yiraahdeen qof kasta oo qaadanaya ilmahooda waa inuu Social Security ayaguba uu leeyahay marka dadka sharci darrada ma qaadan karaan. arintaasi darteed marka waa ay diideen. sharcigan waxaa ka soo shaqeeyay guddiga dhaqaalaha ee aqalka sanadka ninka madaxda ka ah oo la yiraahdo Ron Wyden oo Oregon laga soo doorto dimuqraadiya iyo guddiga Ways and Means oo isaguna ninka madaxda ka ah oo Republican oo la yiraahdo Jason Smith. laakiin xubnaha Republicanka ayaa ka soo horjeestay laakiin hadda sanadka fasax ay aadayaan bishan aqalka wakiiladuna waa ay aadeen September marka ay isku soo laabtaan rajo kale ayaa jirta in mar kale la soo hordhigo aqalka sanadka. marka wali rajadu ma aysan baabi'in rajo ayaa jirta in sharcigan la meel mariyo Jali Tax Credit-ka September marka ay dib u soo laabtaan fasaxooda oo Agostodan ay ka soo laabtaan ayaa mar kale la filaya in dimuqraadiyiintu ay soo hordhigaan. marka wayna arki doonaa haddii xubnaha badan oo maqnaa maadaama hadda xubno badan ay ka maqnaayeen maanta ilaa iyo 8 xubnood ay ka maqnaayeen senatar oo aysan codeyn shalay sharcigan markii sanadka la hordhigayay in haddii marka labaad ee lagu soo celiyo uu meel maro. shaqooyinkii la abuuray bishii July oo ayaa soo baxday waxaana lagu dhawaaqay in 114,000 oo shaqooyin la abuuray laakiin 185,000 ayaa la tiigsanayay. heerka shaqalaanta wadanku waxa uu ahaa 4.1 laakiin hadda kor sare ayay u kacday oo waxay gaartay 4.3% shaqo la'aanta wadanka. shaqooyinka la abuuray waxa u badan dhinaca caafimaadka dhismaha gaadiidka iyo sidoo kale warehouse-ka ayaa ugu badan shaqooyinka la abuuray bishii la soo dhaafay. ugu dambeyntii maxaabiistii shalay Ruushka iyo Mareykanka isweydaarsadeen ayaa dib ugu kala laabtay Ruushka Mareykankana ay xalay soo gaareen. madaxweyne Joe Biden iyo waliba madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris ayaa xalay markii ay saacadu ahayd 11:45 oo habeenimo ama 5 saac iyo 45 habeenimo Joint Base Andrews oo Maryland ku taal ay ku soo dhaweeyeen 4 maxaabiis ee Mareykanka ahayd oo 3 kamid ah ay Mareykan ahaayeen midna uu green card haystay in ay lagu soo dhaweeyay halkaas ay ku soo dhaweeyeen iyadoo waliba qoysaskoodana ay joogeen. xubnaha Mareykanka ah ee laga soo daayay Ruushka waxaa kamid ah Paul Whelan oo horey ciidamada Marines uga tirsanaan jiray ilaa iyo sanadkii 2008 ay ku xirnaa wadanka Ruushka. Ivan Gershkovich oo wariye ka tirsan Wall Street oo isaguna ilaa iyo bishii March ee sanadkii 2023 xirnaa waxaana labadooda mid waliba oo Ruushku ku xukumay 16 sano oo xabsi ah. hadda 13 maalmood ka hor ayaa wariyahan Ivan Gershkovich ee Ruushku ay xukumeen iyagoo basaasnimo ku eedeynay. waxaa kamid ah sidoo kalena haweeneyda haysata labada baasaboor ee Mareykanka iyo Ruushka oo la yiraahdo Alsu Kumasheva halka sidoo kalena uu jiro nin mucaaradka Ruushka ka tirsanaa oo isagana la yiraahdo Vladimir Kara-Murza isagu green card ayuu haystaa. Mareykanka madaxweyne Joe Biden ayaa waxa uu taagnaa diyaaradda markii ay ka soo tageen waad arkaysaa Paul Whelan ayaa ugu horeeyay oo 11:45 diyaaradda ka soo degay. madaxweyne Biden ayaa halkaas ku talaamay sidoo kale madaxweyne ku-xigeen Kamala Harris way garab taagneyd waxaana sidoo kale joogay qoysaskooda halkaas markii qoysaskooda ay kula kulmeen oo ay hab is siiyeen muddana halkaas ay ku sheekaysteen. waxaa dadkan la soo daayay si caafimaadkooda loo jeegareeyo dib loogu duuliyay gobolka Texas halkaas oo ay gaareen xaaladooda caafimaad ayaa halkaas lagu baxnaanin doona isla markiiba looma ogolaan doono qoysaskooda inay guryahooda ay la joogaan oo loo diro. marka xaaladooda caafimaad la baxnaaniyo kadib ayaa dib loogu soo shacabkooda ama dadkooda ama qoysaskooda ay dib ula midoobi doonaan. madaxweyne Joe Biden shalay wuxuu yiri arrintan diblomaasiyad iyo saaxiibtinimo ayaa sabab u ah. wuxuu yiri wadamada xulafadeena ah ee Yurub waxay naga caawiyeen inaan dadkeena helno
ruushkana uu dadkiisa helo waxyaabaha sida aadka loogu murmo waxa kamid ah ra'iisul wasaaraha wadanka Jarmalka Olaf Scholz ayaa waxa uu yiri madaxweyne Joe Biden markii wada hadleen adiga darta ayaan u sameeynaya Jarmalku waxay siideen dil ku eedeysna oo xabsi ku jiray dalka Jarmalka oo la yiraahdo Vadim Krasikov iyadoo arintaasina sidoo kale maxaabiista la isweydaarsaday 24 ayay ahaayeen 16 ayna kamid ah waxa soo daayay wadanka Ruushka oo wadamada ku lugta laha arintan oo maxaabiista qaarkood soo daayay iyagana loo soo daayay waxa kamid ah wadamada ay kamid ahaayeen Norway, Germany, Slovenia, Poland halka sidoo kalena Ruushka loo sii daayay 8 maxbuus madaxweyne Putin ayaa isagoo ubax wata airportka Moscow ku soo dhaweeyay maxaabiistii loo sii daayay oo 8 ahaa waxana uu sheegay in uusan hal daqiiqo xitaa uusan hilmaamin oo markastaba uu maskaxda ku hayay marka madaxweyne Joe Biden waxa uu yiri saaxiibtinimada iyo xulufadu waa wax jira isla markaana marka aad u baahan tahay ayay ku caawinayaan sawiradan waa madaxweyne Joe Biden oo shalay markii uu helada dadkan la soo daayay aqalka cad kula sugnaa uu sheegayay in la soo daayay dadkoodii isla markaana sidoo kalena telefoonka qaarkoodba uu kula hadashiyay sawiradan waa xalay markii airportka lagu soo dhaweynayay oo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkuba ay soo dhaweynayeen qoysaskuna ay halkaasi joogeen farxad iyo damaashaad oo halkaasi ka muuqanaya aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono وصاحبكن علم وارودين لا سدا iyo nabadgelyo